dowladda Iran ayaa ka xanaajisay wadanka Qatar kadib markii bandhig gantaalo ah oo lagu qabtay dalkaasi Iran gaar ahaan magaalada Tehran madaxa hore la saaray mid ka mid ah gantaalaha magaca dalka Qatar taas oo caraw weyn ka abuurtay dunida Carabta haddaba tani ma waxay noqonaysaa fariin hanjabaad ah oo ku socota saaxiibada Mareykanka ee gobolka Bariga Dhexe maxay yihiin isbedelada dowladda Iran ka soo kordhaya iyo waliba tallaabooyinka ay qaadayso Tehran dowladda Mareykankana xilli sidaasi ay ku dhawaaqeen maanta soona bandhigeen dowladda Iran waxay leeyihiin gantaalihii wadankaasi ay awood lahaa hoos ayaa loo dhigay oo duqeyn ba'an ayaa loo geystay 40 maalin oo ay dagaalada socdeen ma bandhiga dowladda Iran ayaa runa mase hadalka dowladda Mareykanka ayaa loo qaateena maxaa lagu tilmaami karaa dhacdooyinkan ishareere yaalla ee ka soconaya gobolka Bariga Dhexe